bal ka waran saaxiibayaal haddii aad urur ku soo toosto in adiga oo keliyii uu dunida ka soo hadhay sidoo kale aysan jirin noole kale oo aan adiga ahayn imse cisho ayaad ku noolaan lahayd noloshaas sheekada filimkeenna sidaas ayay ku saabsan tahay aynoo bilaaba sheekadeenna bilowga sheekada si kadiisa ayay wax ugu dhaceen dunida kuwaasoo tirtiraya dhammaan dadka ku nool caalamka waxa dhacday arrin la yaab leh oo dadka dunida joogay hal mar ayay wada dhintaan laakiin magaalo yaroo ku taalla ameerika anigu waan ku badbaaday waxaan bilaabay inaan ogaado inaan ahay qofkii ugu dambeeyay ee bini'aadana kaasoo dhulka ku hadha xataa cidlada dhexdeeda waxaan u sameeyey naftayda nidaam degan oo aan noloshayda ku maareeyo waxaan ku noolahay isla maktabadii aan hore uga shaqayn jiray xataa maanta waxaa si buuxda u daryeelaa buugaagta anigoo si habboon u habaynaya si aysan u hallaabin cuntada waxaan ka keenaa subarmarketyada sidoo kale waxaan bilaabaa inaan kalluumaysto sababtoo ah dadkii iyo xayawaankii oo dhan waa ay dhammaadeen laakiin kalluunka oo keliya ayaa weli nool waana waxa qudhay aan kusii noolaan karo dhanka kale magaalada waxaan u sameeyey nidaam dhammaystiran oo aan ku nadiifiyey guryaha magaalada maalin kasta waxaan dooran jiray hal guri geli jiray anigoo wejiga iska daboolaya si aan uga fogaado nooc kasta oo wasakha ama cudura wax kasta oo faa'iido leh oo aan helo sida baytariyada ama batroolka gaadhiga waan soo uruurin jiray buug kasta oo guriga yaalana waxaan keeni jiray maktabadayda haddii aan meel ku arka mayd waxaan ku duubi jiray go'iisa waxaanan ku aasi jiray dhulka anigoo isticmaalay cagacagafta markaan shaqada dhammeeyo waxaan calaamad eegis ku qori jiray guriga horteeda waxaanan ku calaamadin jiray khariiradayda maabka si aanan ugu khaldamin maalin kale oo aanan dib ugu laaban habeenada kadib markii aan daawaday filim hore sidii caadada ay ahayd waxaan aaday hurdo markaas ayaan sikadiisa uga naxay dhawqa qarax weyn oo dibadda ka dhacay markaas dibadda ayaan eegay waxaa cirka ka baxay rash dhalaalaya isla daqiiqadaas waxaan ogaaday in laga yaabay in qof kale uu adduunkan iguna nool yahay subaxdii xigtay waxaan aaday dhanka magaalada si aan u baadho waxa dhacay halkaas waxaan ku arkay baabuur shil galay gabadhii baabuurka waday oo magaceeda la yidhaahdo Grace waxay u jiiftaa si miyir la'aana sababtoo ah waxay iska badisay cabitaan markaan baabuurka dhexdiisa eegay fahmay inay iyadu tahay qofka rashka ridaya xalay sidoo kale waxay haysatay qori cabbaar kadib Grace waxaa ku soo kacday guri aanay aqoonin iyadoo madaxa looga xidhay faashad kadib markii hunqaacday waxaa isku dayday inay furta albaabka laakiin albaabku waa xidhnaa aniguna dibadda ayaan taagnaa oo aan su'aalo weydiinayay Grace waxay ii sheegtay inaysan arag qof kale oo bini'aadana sidoo kale aysan garanayn sida ay u badbaaday markaan maqlay hadalkeeda sheekadaydii ayaan dib u xasuustay iyo inaan sidaas oo kale ku badbaaday markii la waayey bini'aadamka waxay kaloo ii sheegtay inay qoriga ka hesho wadada oo ay u haysatay si ay nafteeda u badbaadiso intaas kadib ma aanan rabin inay Grace sii joogto markaa waxaan u diyaariyey baabuur waxaan u sheegay inaan albaabka ka furi doono kaliya haddii ay ballan qaada inay baxayso kadib markaan u tiriyey 200 laakiin Grace waxay jabisay ballantii oo isla markiiba waxay furtay albaabka taasoo iga dhigtay inaan argagaxo intaa kadib waxaan siiyey furayaashii baabuurka waxaanan ka tegey halkaas anigoo aan dhegaysanayn wax kasta oo ay sheegayso iyadoo si joogtaa igu leh ma rabo inaan keligay tago waxaan rabaa inaan halkan joogo Grace ma aysan si joogta ayay iigu daba jirtay iyadoo leh waxaan kaa caawin karaa nadiifinta guryaha sababtoo ah 2 qof oo wada shaqaynaya waxay u dhammaystiri karaa shaqada si dhaqso ah kadibna waxay u gudbi karaan magaalo kale laakiin aniga ahaan ma islahayn magaalo kale ayaa jirta si cad ayaanan u diiday waxaan u sheegay inaanan u baahnay caawiye haddana waxay sii waday inay garabkayga socoto joogitaankeedu wuxuu iigu keenay xanaaq iyo buuq la yaab leh noloshaydii degganayd ee aamusnayd ee aanan muddada dheer xanaaqin waxay hal mar isku beddeshay mid buuq leh xilliga cuntada waan iska fogeeyey waxaanan fadhiisiyey miis gaara waxaan ka fogaaday sheekooyinka maclaayacniga sidoo kale waxaan diiday inaan ka hadlo sidii adduunku u dhammaaday iyo sababihii ka dambeeyey habeenada ka mid ah waxaan u sheegay in xataa markaan dadka dhex joogi jiray aan qof keli socdo ahaan jiray intaa kadib markii Grace ay aragtay inaanan rabin inay ila joogto waxay xidhxidhatay alaabteeda waxaana u diyaargarowday inay tagto isla markii ay baabuurka gashay waxaan dareemay inaan cidlo noqonayo isla markaas ayaan anigu u tegey oo aan ku idhi waan bedelay go'aankaygii waxaadna halkan joogi kartaa dhowr maalmood oo kale intaa kadib Grace waxay bilowday inay ii raacdo nadiifinta guryaha waxayna si tartiiba u bilowday inay fahanto nidaamkayga oo dhan wakhtigaas ayay ogaatay inaan xasuusto magaca qof kasta oo magaalada ku dhintay sidoo kale aan garanayo qof kastaa buugga uu qaatay iyo cidda laga rabo lacagaha dib u dhaca buugaagta markii gaadhay xilligii meydka la aasi lahaa Grace waxay dareentay inaan ahay qof wadne adag sababtoo ah marnaba waxba kama aanan odhan jirin xasuusta dadka dhintay waxay ii sheegtay inay mar kasta oo ay meyd wadada ka hesho ay naqaska isku qaban jirta muddo 10 ilbiriqsi ah sida ay u sharfayso dhanka kale si aan u farxad geliyo Grace waxaan bilaabay inaan la sheekaysto iyada mararka qaarkood waxaan ku odhan jiray waxaan u xiiseeyaa musnaantii hore gaar ahaan markay Grace joogtaa ay la hadli jirtay iyadoo tukaameynaysa ama markay heesa aad u dhaadheer ka geyn jirtay gaadhiga dhexdiisa isla maalin kale markii Grace ay aragtay inaanan joogin maktabadda waxay gashay xafiiskayga halkaas waxay ku aragtay inaan si taxadir loogu kaydiyo sawirada laga soo qaaday guryaha iyo galal fayl ku jira kuwaasoo loo habeeyey hab la yaab leh laakiin aad u nidaamsan markay intaas aragtay way naxday si ay maskaxdeedu dejisa waxay ka baxday halkaas waxayna kaxaysatay baaskiladeeda markaas ayay maqashay dhawaqyo ka soo baxaya guri gudihiis markay gashay way
naxday sababtoo waxay halkaa ku aragtay ay waxa u kaxaysatay maktabadda si ay u haystaan kumaanan farxintan laakiin haddana waxaa soo jeediyey dhowr magac oo aan u bixinno ugu dambayntiina waxaan isla qaadan inaan ugu yeedho keliya ay si tartiib ah aniga iyo garis waxaan bilownay inaan isku soo dhowaano waxaanan bilownay inaannu hal mis ka wada cuntayno waxayna ila wadaagtay sheekooyinkii carruurnimadeeda dhowr maalmood kadib waxaan aragnay aygii oo jeexjeexaya buug markaan tan arkay waan xanaaqay waxaan u sheegay garis inay nadiifisa meesha aygii ayaan dibadda u saaray laakiin markaas ayuu aygii qaniinay garis isla markiiba way dhayday dhaawacayga laakiin dhacdadaas kadib xanaaq ayaan u qaaday ayga waxaa intaas dheer garis jacaylka badan ee ay u haysa ayga ayaa bilaabay inuu dhibo subaxdii xigtay markay garis toostay aygii way weyday isla markiiba waxaan magaalada oo dhan ka soo raadinay aygii ugu dambayntiina waxaan qirtay inaan anigu ka furay xadhigga si uu u soo kaadiyo hadalkaygu wuxuu muuqday mid shakile garisna waxay isla markiiba fahantay inaan si ulakaca u sii daayay ayga way xanaaqday markaan ku laabanay maktabaddana waxay cabtay cabitaan waxayna turtay dhammaan galalkii sawirada ahaa garis waxay ugu eedaysay inaanan dadka u arkin bini'aadan balse aan u arko ashyaa oo keliya maalintii xigtay si aan u raaligeliyo waxaan tusay aqalkayga qarsoona greenhouse-ka waxaan u ogolaaday inay dhirta dar yeesho sidoo kale waxaan u sheegay in muddadii tijaabada ahayd ay dhammaatay haddana aan nahay lamaane oo ay iila joogi karto maalin maalmaha ka mid ah garis waxay heshay guri aan ku jirin khariiradayda haba yaraatee isla markii ay gashay si xanaaq leh ayaan halkaas u soo gaadhay waxaanan u sheegay inaanay halkan imaanin oo aanu rabin inaan nadiifiyo gurigan markaas ayay garis fahantay inkani ahaa gurigaygii hore markay weydiisay sababta waxaan u sheegay in dhimashadii ugu horreysay ee aan arkay aan halkan joogay ugu dambayntiina waan ogolaaday waxaanan ku raacay garis caawinta inaan nadiifiyo gurigayga waxaan soo saarnay meydka hooyada oo ku jirtay guriga waxaanan u aasay si murugo leh kadib markaan macadsalaamaynay waxaan neefteeda qabtay wax ka badan 10 ilbidhiqsi daqiiqadani waxay ahayd tii ugu cuslay sababtoo ah markii ugu horreysay waxaan si buuxda u dareemay xanuunkayga subaxdii xigtay markaan indhaha kala furay waxaan isku arkay anigoo jiifa sariirtii gurigii aan garis markii ugu horreysay keenay markaan hoos u degay waxaan la yaabay inaan arko garis oo la quraacanaysa 2 qof oo kale kuwaasoo kale ah badrik iyo faylet waxay ugu yeeraysay hooyadeed iyo aabaheed waxay sharxeen in california ay kumanaan qof ku wada nool yihiin iyagoo samaystay bulsho waxay yidhaahdeen weligay maanaan ogeyn tan sababtoo ah weligay kama aanaan bixin magaaladayada si aan kuwa kale u raadino xanaaq ayaa iga buuxsamay sababtoo garis waxay ii sheegi jirtay inaan nahay bini'aadamka ugu dambeeyay adduunka ku nool anigoo aan waxba dhegaysan ayaan gurigii ka soo baxay garisna way soo daba gashay iyadoo isku dayaysay inay ii sharaxdo inaysan ahayn waalidkeeda dhabta ah balse ay yihiin 2 qof oo qolaad oo bulshadu u dooratay inay noqdaan waalidkeeda cusub waxay kaloo sheegtay inay u muuqdaan kuwa qariiba laakiin ma aanan dareemayn waxaan uga tegay garis halkaas waxaanan aaday maktabadda badrik ayaa igu yimaada maktabadda wuxuuna ii sheegay inaan raaco isagoo sheegaya inay jiraan dhakhaatiir helaya habab cusub oo lagu maareeyo laguna bedelo maskaxda bini'aadamka intuusan tegin wuxuu ciwaankiisa ku qoray buug wax yar kadib garis waxay magaalada kaga tagtay aniga iyadoo ooyeysa waxaanan isku dayay inaan ku laabto nidaamkayga hore laakiin hadda cidladii iyo aamusnaantii ayaa bilaabay inay gudaha iga dhaawacaan habeenadii oo dhan waxaan arki jiray riyooyinka garis subaxdii xigtayna waxaan soo saaray dhammaan galalkii faylalka anigoo ka baadhaya ciwaankii uu shalay igu qoray odaygii waxaan go'aansaday inaan u tagay garis safarkii californiyana wuxuu ahaa mid aad u dheer oo adag laakiin maanan quusan ugu dambayntii markaan gaadhay california waxaan helay gurigii garis habeenkii ayaan si aamusnaan ah u galay guriga anigoo wata qorigayga isla markii aan helay qolka garis naxdin ayaan barafoobay sababtoo ah muuqaalka halkaas yaallay wuxuu ahaa mid aad u looga naxo garis waxaa qoorta kaga xidhnaa mashiin tirtiraya xasuusta burburka iyo xanuunka lumitaanka qoyskeeda dhab ahaantii tan waxaa lagu samayn jiray qof kasta oo bulshada ka mid ah si ay u ilaabaan wixii hore oo ay u noqdaan kuwa si qasaba u faraxsan anigoon wakhtiga lumin ayaan ka gooyay garis mashiinkii kadib waxaan isku dayaynay inaan baxsanno annagoo u jirnay wax yar inaan baxsanno ayaa baadrig noogu soo baxay wuxuu isku dayay inuuna joojiyo laakiin garis ayaa qorigii iga daftay oo ku toogatay badrig isla halkaas sida daqiiqadaas faylet ayaa timid laakiin ma aysan muujin wax dareen ah ama naxdin oo wejigeeda ka muuqda waxay eegtay meydka sidii caana dhulka ku daatay oo kale iyadoon wax murugaa qabin ayay bilowday inay raadisay qalabka nadiifinta si ay dhiiga ugu tirtirto markaas ayaan ogaaday in mashiinku uu ka saaray aadamaha dhammaan dareenkii gudaha garis waxay qaadatay kalluunkeedii waana ka tagnay halkaas markaan waddada gaadhna garis waxay sheegtay inaysan wax qoomamaa ka dareemayn toogashadii badrig kadib indhaheedana kama muuqanin cabsi balse waxaa ka muuqday deganaansho waxaan u xaqiijiyey inaan wax kastaaba hagaagi doonaan kadibna labadeeduba waxaan u ambabaxnay safarkayaga xiga halkaas oo aan ka bilaabayno nolol cusub nolol uu jiri doono xanuun laakiin xasuustu ay ahaan doonto mid nool filimkeenna halkaas ayuu ku dhammaanayaa haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar siina sheer garee mahadsanid